Atto Bilaja Girma waxa uu dhashay dalka Itoobiya. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ninka ugu qosolka badan adduunka. Sidoo kale Bilaja Girma waa macallin ku tareen gareeya bulshada in ay qosol badan sameeyaan. Waxa uu xarun ku leeyahay Addis Ababa. Oday u dhashay dalka Suudaan ayaa waxa qabsatay arrin yaab leh. Dhab ahaantii anaaba ku qoslay arrintan. Wuxuu yiri markii aan jamaraadka tuurnay ayaa qorraxdii kululaatay. Kadib waxaan arkay qol ay hurdaan xijaaji dharka cad sidatay. Waxaa qolka hor fadhiya askari. Askarigii intaan ka dhuntay ayaan qolkii jiifsaday. Qolkii aad buu u qaboobaa. Markaan 2 saacadood nastay ayaan ka jiifi kari waayay qabowgii qolka. Kadibna waan soo kacay. Askarigii markuu arkay ayuu cararay. Aniguna waa yaabay. Dibadda markaan u soo baxay ayaan akhriyay boardka. Bise waxaa ku qoran talaagada dadka dhintay ama talaagada meydka. Ardayda dalka Mareykanka u dhalatay ayaa soo saartay jaakad lagu magacaabo Like a Hug Facebook Fest. Jaakadan ayaa wadata qalab ogolaanaya in aad ku xiriiriso Facebook-gaaga. Kadib aad gashato waxa ay ka caawinaysaa haddii post video ama sawir aad gelisay Facebook-ga uu qof ka mid ah asxaabtaada saaro like. Waxa isku imaanaya jaakadaada oo sida qofkii hab inuu ku siinayo camal ama laabta ku gelinayo ayaa dareemaysaa. Taas oo ay sheegtay inay abuurayso naxariis uu qofka helayo saaxiibkiisa like-ta u saaray. Saynisyahano arrintan baaray waxa ay ka digeen in ay halis abuuri karto jaakadan oo qofka isaga oo filanaynin jaakada mar qura habsiiso ayna macquul tahay in cabsi iyo naxdin ay ku abuurto. Haddaba adigu fikir ahaantaada ma kula tahay in loo baahan yahay jaakadan? Adigu sama isticmaali lahayd? Maxay faa'iido ah leedahay oo ay soo kordhinaysaa? Tuulo ku taala gobolka Hatay ee koonfurta Turkiga ayaa waxa ku nool qoys sida xayawaanka ku socda lugaha iyo gacmaha. 2005 ayay khubaro cilmi baarayaal ah heleen waxa ayna sameeyeen baaritaano la xiriira sababta qoyska ay lugaha iyo gacmaha uga wada socdaan. Qoyskan ayaa ka kooban 7 qof oo ay ka mid yihiin waalidkii carruurta dhalay, 3 gabdhood iyo 2 wiil oo ka mid ah iyo 2 waalid oo carruurta dhalay ayaa ku nool tuulo yar oo ay ku nool yihiin dad iska danyar ah. Waxa la yaabka ah ayaa in waalidka carruurta dhalay ay sida dadka caadiga u socdaan oo ay lugaha ku socdaan. Ha yeeshee 5 qof oo walaalaha ahna ayaa dhammaan ku socda lugaha iyo gacmaha. Ayadoo saynisyahanada qaar ay qabaan in ku dhawaad 5 milyan oo sano ka hor bani aadamka uu ku socon jiray lugaha iyo gacmaha. Ha yeeshee yaab ayay ku noqotay in malaayiin sano kadib la helo dad ku socda lugaha iyo gacmaha. Baaritaano dheer oo caafimaad kadib waxa ay dhaqaatiirta iyo saynisyahanada isku khilaafeen arrintan. Dhaqaatiirtii ayaa ku doodaya in arrintan ay la xiriirto dhaawac xagga maskaxda ah oo ay saameeyay carruurta. Ayadoo saynisyahanadu ay ku doonayaan in ay arrintan ay tahay dhaxal imaan kara dhowr milyan oo sano kadib. Daawadayaal, maanta waxaa intaan noogu eg barnaamijkii dhacdooyinka adduunka. Si aan barnaamijyo xiiso badan kugula wadaago, fadlan rukumo channel-ka oo subscribe ii saar, muuqaalkana like ii saar, qaybta faaladana fikirkaaga igula wadaag.